آمن وسوق لا هاي كلهم كوين ريال مدريد إي مانشستر سيتي عاو كل حمر دونه قرون كبرنابو أباي والله عاو كلهم كاس إي آمن كلهم دب إهواي شافي ألونسو أو كلهم كان لغو حريش قديسة وعيارتوي بدن كم خيهين sidoo kale Pep Guardiola oo kooxdiisa iskugu toosan tahay hadoosan isqaldin Haaland iyo Mbappe oo caawa la eegi doono inkastoo Mbappe shaki oo ku jiro sidoo kale ninkii Pep Guardiola oo su'aalo laga weydiiyay ninkii wiilkiisii hore Xavi Alonso iyo pressure-ka caawa saaran hadii laga badiyo iyo hadoo tala siin lahaa ninka su'aalaha sidoo kaga jawaabay hadaan ku sheeg adaa yaabi doontid sidoo kale Club Brugge iyo Arsenal waa soo qaadan doona Arteta iyo wiilashiisa oo Champions League record 100% ku socda iyo warar kale oo ciyaaro oo aan ku qarinayaan rabaa barnaamijka inaan kuugu sheego kulamada caawan xoog saari doona Champions League marka kuugu horeysa hadii aad tahay subscribe ida YouTube-ka Force Manchester like aad bay muhiim iigu tahay sidoo kalena noo share gareeya 1k like kor u dhaafsiyo videogan asxaabteeda like aad bay muhiim iigu tahay soo dhawaada i aamin waan sugi la ahay kulanka weyn caawa dhici doona Champions League Real Madrid iyo Manchester City waa kulan aad u adag labadan kooxna sanadii ugu dambeeyay waaba la isla beegsadaa i aamin afartii sano hadda ugu dambeysay kooxahan hadaysan gruubyada isku arkin knock out-ka isku arkayeen waa laba koox oo waxa u maleesaabo lees daba dhigay inay yihiin laakiin kulankan kulamada kale waa ka duwan yahay Real Madrid caawa gurigeeda lagu ciyaaraa dhaawacyo badan ay qabaan sidoo kale Xavi Alonso shaqadiisa calaamad su'aala saaran oo kulankaana lagu xiray hadii kulankan laga badiyo waxa waaye waxay u badan tahay shaqadiisa inuu wayn doono wayn doonaaba ilaan horaa loo shaaciyay warkaan war serious no war waa la dhahoya ma ahan waxa lagu leeyahay kooxda Real Madrid tababarahooda Xavi Alonso hadii caawa la garaaco shaqadiisa wayn doona oo bixi doona ninkan muddo kooban ayuu kooxda Real Madrid oo kaga tagi kara asigoo muddo badan ba oosan joogin caawa dhaawacyo badan ayaa laga soo sheegay kooxda Real Madrid Camavinga oo dhaxda la xaqiijiyay inuu soo dhaawacyada ku darsoomay sidoo kale Militao oo asigana ka dhaawacmay kulanka ugu dambeeyay Hudson oo shaki la gelinayo sidoo kale ninkii Trent Alexander-Arnold sidoo kale Carvajal waxaan ku dhahay Kylian Mbappe oo asigana shaki la gelinayo kooxda Real Madrid pressure waa saareen Xavi Alonso dhaawacna waa ku jira oo kooxda aad bay u dhibaatoonaysaa ninkii Pep Guardiola ahaa waa hadlay su'aalo la weydiiyay intii kooxdiisa aan u guda gelin su'aalo ayaa la weydiiyay wiilkiisii hore maadaama kulankiisii ugu horeeyay asigoo tababare ee Xavi Alonso oo ka hor imaan doona macalinkiisii hore ee Pep Guardiola ninkan 75 kulan miyaa 72 kulan ayuu ka soo hoos ciyaaray Pep Guardiola waqtigii Bayern Munich marka asigoo tababare ee waa markii ugu horeysay oo macalinkiisii hore Pep Guardiola oo ka hor imaan doono Xavi Alonso waqtigaana waxay ku soo aaday waqti oo wiilka pressure oo saaran yahay kulankan hadii laga badiyana shaqadiisa oo ku weyn doono marka Pep Guardiola ayaa wax laga weydiiyay taasoo ah caawa pressure-ka saaran wiilkiisii hore Xavi Alonso hadii laga badiyo in shaqadiisa oo ku weyn doono wuxuu leeyahay nasiib wacan u rajeynaa oo leeyahay Xavi Alonso xaaladda uu ku sugan yahay caawana nasiib wacan u rajeeyay laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay wuxuu yiri koox la qabto mid ugu dhib badan oo dhahay inaad koox tababaro u noqoto mid ugu dhibka badan kooxda Real Madrid waayo dhahay waa kooxda ugu pressure-ka kulul waayo dhahay maxaa yeelay inta koox ee dunida ka dhisan oo dhahay kooxda ugu dhibka badan oo dhahay mise ugu adag inaad tababaro u noqoto dhahay Real Madrid waayo dhahay wuxuu yiri xaaladda aniga aan sanadka hore Manchester City aan ku galo dhahay xaaladda aniga sanadka hore Manchester City igu qabsatay haday Real Madrid igu qabsan lahayd oo dhahay 6 bil gudaheeda lagu racdayn lahaa oo dhahay 6 bil gudaheeda aan lagu racdayn lahaa hadda waa koox pressure waaye
aan adkays lahayn sidoo kalena aanan fursad siinaynin tababarayaasha marka 6 bil gudaheeda lagu burin lahaa dhahay marka kooxa adduunka dhahay Real Madrid iyo Barcelona inaad tababaro u noqotid wax fudud ma ahan oo dhahay wax fudud ma ahan wiilkeygana nasiib waana u rajeynaa dhahay marka caawa marka eegtid labadan koox 14 kulan ee wada ciyaareen 5 kamid ah kooxda Real Madrid ayaa badisay halka 4 kamid ah kooxda Manchester City ay badisay labadii kulan ee ugu dambeysay Manchester City ayaa la garaacay oo tii sanadka hore waa ogeedeen oo Kylian Mbappe tii ugu dambeysay Bernabeu ka dhacday 3 oo ka dhaliyay marka eegtid Kylian Mbappe caawa shakiya ku jira in kooxdan Real Manchester City oo ka hortago haddii oo ka hortagana waxa la leeyahay waxay noqon doontaa risqi in lagu ciyaarsiyo Mbappe sanadkan aad buu u kacsan yahay Champions League 5 kulan oo ugu horeysay 9 gool ayuu ka dhaliyay taasoo ku tusinayso sidoo kale kooxdan Real Manchester City-na marka eegtid 7 kulan marka eegtid 7 gool ayuu ka dhaliyay intuu hadda Real Madrid joogo hadda labadan sano 5 kulan miya mise 4 kulan miya mise intuu ka hor imaaday 7 gool ayuu ka dhaliyay kooxdan Manchester City waaba koox oo yaqaan hal goolna uu ku caabiyay marka sidoo kale kooxdan Manchester City waxa lagu leeyahay kooxaha Spain ka dhisan 7 kulan ee ugu dambeysay group stage-ka markay isku arkaan Champions League 6 kamid ah ayay badiyeen la leeyahay kooxda Manchester City halna waa laga badiyay sidoo kale Haaland oo asigana sanadkan aad u kacsan waxa lagu leeyahay 9 kulan ugu dambeeyay kooxaha Spain oo ka hor imaaday 9 gool ayuu dhaliyay asigana marka taas waxay ku tusinaysaa Haaland iyo Mbappe inay yihiin labada laacib ciyaartan go'aamin doona haday imaado yaa gool dhalin kara marka caawa Xavi Alonso oo xaaladda ku xuntahay koox pressure ku ciyaaraysan waa dareemi kartiin habeenkaas waxa way aad bay u adagtahay inay ka badiso sidoo kale Pep Guardiola iyo kooxdiisa City oo aad u kacsan 4 ciyaar ugu dambeysay abitan ah sidoo kale caawa waxa la eegayaa ninkii Valverde iyo Doku caawa sidee kubadooda ay noqon doontaa maadaama Doku oo yahay xidig aad u halis badan numberka labaad ee difaacyada Premier League soo dhibay caawana Valverde sidoo ku celin doona ayaa la leeyahay marka waan arki doonaa kulankaas iyo wixii ka soo baxa sidoo kale Club Brugge iyo kooxda Arsenal Arteta 100% record ayuu ku socdaa 5 ciyaar ugu horeysay Champions League guul ayuu ku furtay midaan inay sameeyaan waxa ugu dambeysay sanadkii ee finaalka tagayay 2005-2006 marka sanadkaana ma tagi doonaan finaalka waa su'aal isweydiinay sidoo kale Declan Rice iyo Saliba iyo ninkii Trossard waa laga soo tagay oo ninkii Declan Rice xanuun yar ayuu qabaa leeyahay kulankan waa uu seegi doonaa sidoo kale Club Brugge aad bay u dhibantahay sanadkan kaalmaha ugu hoosay ayuu ku jirtaa horyaalkooda laakiin marka ay Champions League markay gurigeeda ku ciyaareyso aad bay u adag tahay 20 kulan ee ugu dambeysay waxa lagu leeyahay 15 kulan ayay ku badisay gurigeeda hal kulan miya 2 kulan loogu badiyay 4 miya iyo 5 miya bareeje ku galeen gurigooda 5 ciyaar ugu dambeysay waxa lagu leeyahay oo gurigooda ay ku ciyaareen kooxdan Club Brugge waaba unbeaten ba oo dhibco ma loogu qaadaninba marka eegtid laakiin kooxaha Premier League waxa lagu leeyahay 18 kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaareen 14 kamid ah waa la garaacay kooxdan Club Brugge sidoo kalena hal jeerna waa ay badiyeen 3 jeerna bareejo ayay galeen marka aad bay ugu dhiban yihiin la leeyahay kooxan Premier League ka socda inay guulo ka gaaraan sidoo kale kooxda The Gunners Arsenal 7 ciyaar ugu dambeysay kooxaha Belgium ka ay la ciyaareen waa unbeaten la leeyahay oo kooxdan wax guul dara ah kama soo gaarin marka Arteta iyo kooxdiisa Arsenal aad bay u adag yihiin waxa waaye inkastoo horyaalkii hadda habacsanaan ka muuqatay kulanka ugu dambeeyay Aston Villa ee garaacday haddana Champions League wacdaro weyn ay ka dhigaan xataa caawa haday gool dhaliyaan mis 2 gool ay dhaliyaan goolkoodii 400 ee Champions League ay ka dhaliyaan ayuu noqon doonaa marka Arsenal aad bay u adag tahay aamin Arsenal aad bay u adag tahay marka
labadaas kulan waa labada kulan ee ugu waaweyn sidoo kale PSG iyo sidoo kale kooxda Athletic Bilbao caawa ciyaari doonaan inkastoo PSG dhaawacyo badan ay ku jiraan haddana kooxdan waa kooxda difaacanaysa UEFA Champions League halka kooxda Athletic Bilbao la leeyahay kooxaha Faransiiska baba ku dhiban tahay guul maba ka gaartaba waa koox aad ugu dhibanba inkastoo caaw gurigooda lagu ciyaarayo PSG na wax walbo ku dhici karaan haddana waxa la leeyahay PSG ay guusha u badan tahay حتى كوحدة جوفنتوس عاوي عياريسا marka kulamadaas ugu waaweyn sidoo kale wararka ciyaaraha waxa kamid ah ninkii Maresca aha waa lagu dhagan yahay Maresco waxa la leeyahay xaaladda aad bay ugu xun tahay Maresco qaab ciyaareedka uu ku soo galay garoomada sidoo kale sida ciyaartooy oo u haysto oo haddana u isticmaali karin hadda waxa lagu leeyahay shantii ciyaar ugu dambeysay hal Barcelona bisoo ka badiyay laba baraajil laba guul daro wax macquul gal ma xalay waxa lagu leeyahay saddex dhibic uu qaadan karay war asigoo istifo haysto maxay tahay boosto oo laga ciyaarsiinay numberka 10aad yaa iga dhaadhicin kara midaas war midaas yaa iga dhaadhicin karo oo ii fasiri karo war ninkan wax ma ku dhex jira mise sidaanaba daacad ka ah Maresco war adoo istifo haysatid sidee istifo ciyaarta ugu dhameyn kartaa aanan kaadka xataa ka soo kicin karin mid kale aad busto numberka 10aad ugu ciyaarsiin kartaa no Maresco wax ku dhex jira male Maresco waa lagu dhagan yahay xaaladdan way ku xun tahay haddoo sidan ku sii socdana kooxdiisa waxa waaye ninkan waa bixi doona inuu bixi doonaan u badan tahay marka xaalad aad bay u adag tahay sidoo kale wararka waxa kamid ah ninkii Lamine Yamal ah xal waa la bedelay xal jaalo qaati kulanka soo socda hadda waa maqnaan doona ninkan jaalooyina u aruuray laakiin sheekadii Messi oo keenay ninkan Messi sheekadiisa oo keenay maxaa yeelay sidee la bedeli karaa ciyaar 2 daqiiqo ka dhiman tahay oo dhamaatay oo lagu bedelay war saaxiibadaada keedka ku jira maxay u fadhiyaan inay jaanis helaan 2 daqiiqo ciyaar ka dhiman la bedelay waaba la fuuraba sidee la bedeli karaa ani sidee la bedeli karaa no simee Messi noqotay adi simee Messi noqotay Messi markii la bedelay tala laga qaadan jiray minoo Messi ku bedelay aldi jiray laakiin adi simee Messi noqotay Messi nin shaqaysto waay nin soo halgamay waay nin kooxdan magaca iyo sumcadda maanta ee magaalka ku maraysa kala bar ninka siiyay waay adiga maxaa tahay hadalkaasna waa hadal weyn oo maanta social media lagu hadal haayo sidoo kale ninkii Arne Slot ahaa culeyska waa ka dagay aad baan ugu farxay oo taagan yahay guushii weyneed ee aan ka gaarnay kooxda Inter Milan waa idin sheegay Inter Milan in guul laga soo qaato aad bay u adag tahay maxay la koox foon ku jirtay sidoo kale adoo xaalad kugu xumeed pressure ku saarna kooxdaadana shaashada saxaafadii oo dhan ku eegeysay buuq dhaxdiina ka dhaxsanaa Maxamed Saalax arintiisa ina koox weyn oo Inter ay ka soo badisid waxay ku tusinaysaa in wax pressure ka yareynaysa ay culeyska ninkii Slot ahaana waa uu ku farxay inuu xalay guul weyn oo ka qaatay kooxda Inter Milan sidoo kale kooxda Tottenham xalay 4 gool ku badisay laakiin ninkii Zone ahaa ayaa garoonka Tottenham lagu soo dhabeeyay maadaama ninkan suuqiyo furan kooxdii oo ka tagay oo xaalad macsalaameys aan loo sameeynin MLS-kina oo soo xirmay horyaalkiisii ninkii waxa waa xalay garoonkii oo dhan u kacay waxa waa ninkii waa la macsalaameey qiiro meesha waxa macsalaameys aan inaba caadi ahayn ka dhacday marka Tottenham xalay waa raaxaysatay ninkii Xavi Simons ahana kulamadii ugu dambeeyay ninkii aan labadan bari dhaliileynay aan dhaheynay war ninka labadan bari waa ka jabsan tahay lacag ka saartay waay ninkii waa soo laabtay bandhiga inaba caadi ahayn oo wada dhalis caawin inaba caadi ma ahan marka hambali idin leeyahay hambali inta saaro inay ku soo gabagabeeyo asxaabteeda meel walba ay joogtaan aad u maasantiin